Assalaamu calaykum. Waa Mubaarak Maxamuud Saleebaan iyo channelkeennii Tayatoon Media. Haddaba intaynaan guda gelin muuqaalkeenna, fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar sidoo kalena gambaleelka yar furo si aad ula socoto muuqaalada dambeanu soo gelin doono. Annagana ay noogu noqoto dhiirigelin. Waxaynu halkii ka sii ambaqaadaynaa buuggii taxanaa inoo ahaa ee ka hadlayay dagaalka ku soo foole bariga dhexe iyo dabinnada reer galbeedka, kaasoo ku salaysan qorshihii furfurka islaamka ee Bernard Lewis. buuggan oo uu qoray qoraaga reer Masar ee Hishaam Kamaal, islamarkaana uu soo turjumay Axmed Cabdiraxmaan Cabdalle oo ku magac dheer Fadhi. qaybtanna waa qaybtii 3aad. ku soo dhowaada muuqaalka. Mashruuca Israa'iil ay ku doonayso inay ku hantido webiga Niilka si ay u weerarto ammaanka dhinaca biyaha ee dalka Masar. Mashruucani waxa uu soo bilaabmay sannadadii kontameeyadii ee qarnigii hore. Sannadkii 1955 waxa uu ku dhawaaqay David Ben-Gurion in Yuhuuddu dagaal dhinaca biyaha ah la gelayaan Carabta. Istaraatiijiyadaha kala duwan ee mashruucaasi xambaarsan yahayna waxay suurto gelinaysaa in dowladda Yuhuuddu gaadho hamigeeda ah inay hirgasho shirkadda lagu magacaabo Tahaal ee Yuhuuddu leeyihiin. shirkaddaas oo ujeeddadoodu tahay inay hirgeliso gacan laga soo leexinayo webiga Niilka oo biyaha gaadhsiinaya Israa'iil. gacankaasi oo laga leexinayo meel ka hooseeya kanaalka Suweys. qiyaas ahaanna wuxuu gaadhsiinayaa dalkaasi Israa'iil 8 milyan mitir kayuub oo biyo ah sannadkii. waxa kale oo Israa'iil u qorshaysan inay hantido webiga dalka Jordan iyo webiga Laydani ee dalkaasi Lubnaan iyo sidoo kale webiga Yarmuuk ee dalka Suuriya. haddaba markii la saxeexay heshiiskii nabadda ee u dhexeeyey Masar iyo Israa'iil, muu istaagin damicii ay dowladda Yuhuuddu ka lahayd biyaha dalka Masar ee webiga Niil. markii ay arrintaasi uga suurtageli weyday dhinaca Masar, ayaa waxay u diga rogatay Israa'iil inay awooddeeda ku ballaadhiso dhinaca dalalka uu ka soo bilaabmo webigaasi. waxaanay soo cusboonaysiisay xidhiidhkii diblomaasiyadeed ee ay dalalkaasi la lahayd kadib markii la saxiixay heshiiskii loogu magac daray Camp David. dhinaca kale buugguu soo saaray markiska baadhitaanka iyo adyaanta ee bariga dhexe iyo Afrika, kaasoo hoos yimaada jaamacadda Tel Aviv, looguna magac daray Israa'iil iyo dhaqdhaqaaqa xoraynta Suudan. buuggaas oo uu diyaariyey sarkaal ka tirsanaan jiray hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad, magaciisana la odhan jiray Moshe Faraji, ayaa kaga hadlay sida ay dowladda Israa'iil ugu dadaashay sidii ay u xaqiijin lahayd hadafkeeda ku wajahan daciifinta, cabsigelinta iyo dhabarjiminta dalka Masar, iyo sida ay isugu fidisay bartamaha Afrika muddadaasi. sababtoo ah Israa'iil waxay muddo 50 ilaa 77 sannadooda xidhiidh la samaysay 32 dal oo Afrikaan ah si ay u hareereeyaan dalka Suudaan islamarkaana ay u gaadhaan koonfurta dalka Suudaan. sidoo kale Israa'iil waxay ballaadhisay xidhiidhkii ay la lahayd dalalka ku teedsan webiga Niil si ay cadaadis u saarto Masar. waxa kale oo buuggaasi qoraagu ku soo qaatay qorshaha Israa'iil tan iyo dabayaaqadii 1950meeyadii iyo horaantii 1960meeyadii. qorshahaas oo ay ku doonaysay sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd caalamka Carbeed iyo sidii loo baabi'in lahaaba. wuxuuna qorshahaasi ugu magac daray ra'iisul wasaarihii wakhtigaasi, kaasoo lagu magacaabi jiray Ben-Gurion, magaca siyaasadda adkaynta dhinacyada, taasoo ujeeddadeedu tahay in la dhex galo 3 dal ee kala Itoobiya, Iiraan iyo Turkiga, iyo sidoo kale qaaradda Afrika, iyadoo diiradda la saarayo waddamada uu maro webiga Niil ee ay hormoodka u tahay Itoobiya si ay cadaadis u saaraan Masar. dhinaca Baalakriifistii dalka Suudaan, marka loo eego dhinaca dalka Suudaan, waxa uu Faraji sheegay in istaraatiijiyadda ku salaysan fikirka ay rabto Israa'iil inay ku maamusho guud ahaanba adduunka iyo dalalka Carbeed iyo sidoo kale dalalka la deriska ah, waxay ku salaysan tahay in dhinacyada loo giijiyo oo loo adkeeyo, dabadeedna la daciifiyo ama la jaro, taas oo macnaheedu yahay in xidhiidh lala sameeyo dadka tiradoodu yar tahay, kadibna codkooda loo soo saaro dalka dibaddiisa si intaasi kadib loogu dhiirigeliyo inay ka go'aan dalka ay ka tirsan yihiin. arrintaasina hadafkeedu waxa uu yahay in waddamada Carabta la daciifiyo oo la kala furfuro. sidoo kale waxa uu caddeeyey in sirdoonka Israa'iil uu xidhiidh la sameeyey dadka tirada yar ee ay ka mid ka yihiin Kurdiyiinta ku nool dalka Ciraaq
iyo sidoo kale dadkii ku noolaa koonfurta dalka Suudaan. Waxa kale oo uu tilmaamay in xarakadii ka dagaalamaysay koonfurta dalka Suudaan in Israa'iil ay u adeegsanayso si ay u gaadho hadafkeeda in Masar la daciifiyo dhabarkana laga jebiyo. Waxa kale oo intaasi ku sii daray xidhiidhkii dhex maray Israa'iil iyo dadka ku nool koonfurta dalkaasi Suudaan waxa uu ka bilaabmay qunsuliyadda ay Israa'iil ku leedahay magaalada Addis Ababa. Markii ugu horreysay waxay Israa'iil ku dadaashay inay mucaawino gaadhsiiso dadka ku nool koonfurta Suudaan sida dawooyin, cuntooyin iyo dhakhaatiir. Israa'iil waxay u adeegsatay dadkii ku noolaa halkaasi inay ku kacaan xukunka ka taliya dalkaasi Suudaan, kuwaas oo dagaalkooda looga dhigay inuu yahay mid ay masiirkooda ku xadidayaan. Masiirkaasi oo dalka Suudaan u kala saaraya laba dal oo kale ah waqooyiga Suudaan oo ah dal Carbeed oo Muslim ah iyo koonfurta oo ah dal Afrikaan ah oo ay leeyihiin dad madow oo Masiixiyiin ah. Mashruucaasna waxay ku bixiyeen dhaqaale aad u badan. Dhaqaalahaas oo lagu bixinayo mushaharooyin ay u qortay taliyayaasha sarsare ee xarakadii dhaqdhaqaaqa xoreynta Suudaan oo badankoodu ka soo jeeday koonfurta dalkaasi Suudaan, isaga oo sheegay in qarashka halkaas kaga baxay uu dhammaa 500 milyan oo dollar. Isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi sidoo kale kama marna dhaqdhaqaaqa ka taagan gobolka Darfur ee galbeedka dalka Suudaan. Waxa kale oo qoraagu soo qaatay hadal uu soo jeediyey ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Israa'iil Ariel Sharon sanadkii 2003, isaga oo hadalka soo jeedinayay shir ay lahayd xukuumadda Israa'iil, wuxuuna yidhi sida tan: waxay gaadhay xilligii la geli lahaa galbeedka dalka Suudaan, waana in loo galaa sidii loo galay koonfurta, loona adeegsadaa qaabkii loo adeegsaday. Arrintaasna Israa'iil waxa uu fududeeyey joogitaanka ay joogto dalalka koonfurta Suudaan, Uganda iyo Kenya. Waxaana ay heshay xubno aad muhiim u ah oo ka soo jeeda gobolka Darfur ee dalka Suudaan, isla markaana ka tirsan xarakada loo yaqaano Al-Cadal wal-Musawa ee ka dagaalanta gobolkaasi. Qaar ka mid ah hogaamiyaasha xarakadaasi ayaa waxay booqdeen Israa'iil marar dhowr ah, iyagoo halkaasi ku soo qaatay arrimo la xidhiidha dhinaca howlgallada ciidamada. Sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda Suudaan loo qaybin doono 4 dowladood sidii aynu hore uga soo hadalnay qaybteennii hore. Waxa kale uu sii raaciyey in mashruucaasi ay Israa'iil wado horayso iyo dambaysaba faa'iido uu leeyahay Israa'iil, sababtoo ah waxaanu dalalka Carbeed ka hor istaagnay arrintii ay ku taami jireen ee ahayd inay Suudaan ay noqoto silladda cuntooyinka waddamada Carabta, iyo sidoo kale inaanu beegsanno Masar kana beegsanno isha koowaad oo ah biyaha webiga Niilka. Biyahaasi oo sidoo kale Masar u ah nolosha koowaad, iyo inay Masar ku qasbanaato inay iibsato biyaha Niilka kadib markii heshiisyo cusub la sameeyo. Heshiisyadaasi oo dib loogu eegi doono saamiga ay dowladaha webigaasi uu maro ku yeelan doonaan biyaha webigaasi. Haddaba Faraji waxa uu ku soo gebagabeeyey hadalkiisii kaalinta ay Israa'iil ku yeelanayso qaaradda kadib go'itaanka koonfurta Suudaan. Kadib markii ciidamadooda laga dhigay ciidamo dhisan oo dal leh, waxa ay saamayn ku yeelanaysaa Israa'iil, taasoo soo gaadhaysa ilaa iyo Khartuum, kumana koobnaanayso koonfurta oo keliya, balse waxay gaadhaysaa ilaa iyo waqooyiga si ay u hirgasho yididiilada ay Israa'iil ku naafaynayso Masar. Qoraagu waxa uu soo qaatay buug kale uu qoray nin macallinka ah jaamacadda Haifa ee magaciisa la yidhaahdo Arnon Sofer. Buuggaas oo la yidhaahdo Dagaalka Biyaha ee Bariga Dhexe. Waxa uu qoraagu buuggaasi yidhi Israa'iil waxay ku leedahay istaraatiijiyadda heer sare ah biyaha webiga Niilka. Qaybinta la qaybiyey biyihiisuna waxay saamayn ku yeelanaysaa Israa'iil, waxaana arrintaasi kala xaajoonaysaa Itoobiya. Dhinaca kale buugguu qoray nin lagu magacaabo Shimon Peres oo la yidhaahdo Bariga Dhexe ee cusub, kaasoo soo baxay muddo hore, ayaa waxa uu ku leeyahay Israa'iil xilligii dagaalka waxay u baahnayd hub, xilliga ay nabadda ku jiraanna waxay u baahan tahay biyo. Dhinaca Yuhuudda iyo Carabta, waxaa jira daraasado kale oo ay samaysay dowladda Israa'iil oo ay ku tilmaantay in siyaasaddeedu beegsanayso in la khalkhalgeliyo amniga dalalka Carbeed iyo amniga Masarba. Qaabka ay u beegsanayaanna waxay tahay inay awooddeeda ku ballaadhiso dalalka uu maro webiga Niilku,
iyo inay ka samayso dalalkaasi mashaariic wax beerisa waxaana lagu waraabinayaa biyo laga soo qaado harada Victoria oo ah halka webiga Niilka ee caddi uu ka soo bilaabo. Arrintaasina waxay ugu suurtageli kartaa oo keliya in dhibaato ay ka dhaxayso dalalka Carbeed iyo sidoo kale kuwa Afrika. maantana taariikhdeennii yarayd halkaa hay noogu